waxaa maanta magaalada Habali Gubadle ee xarunta gobolka Haw si rasmi uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo hoose dhexe ee sanad dugsiyeedka 2015 ilaa 2016 ardaydan maanta u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ayaa tiradoodu dhamay 73 arday isla markaana u kala qaybsanaa 26 arday oo ah dugsiyada sare iyo 47 arday oo ah dugsiyada hoose dhexe gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Hawd Maxamed Sheekh Axmed Maxamed oo warbaahinta qaranka maanta kula hadlay magaalada Habali Gubadle ee xarunta gobolka Hawd ayaa guud ahaanba guul u rajeeyay ardayda maanta u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo hoose dhexe ee sanad dugsiyeedka 2015 ilaa 16 jawga aad buu degan yahay ardaydu waa arday isku wada kalsoon oo kulligood ardaydu haday qofku wax bartana dad wixii isku kalsoonaan way isku wada kalsoon yihiin oo wada arday waliba sidoo shaqeynayo way isku kalsoon yihiin in Ilaahay baaskareeyana waanu jecelahay ana koreenayeen imtixaanka baaskareeyana waanu jecelahay ana koreen ardaydu fariisanaysa dugsiga sare waxa fariisanaya 25 baa fariisanaya dugsiga hoose dhaxana waxa fariisanaya 47 baa fariisanaya Maxamed Shiciir Axmed iyo Axmed Maxamed Cawaale TV qaranka Soomaaliland magaalada Habali Gubadle